Kulan ciyaareed lagu maamuusay halyey hore Allah u naxariistay Cabdiqaadir Ibraahim Gacal Abkow ay soo qabanqaabiyeen legendkii hore ee isboortiga ee gabdhaha ee dalkeena Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay ciyaar lagu maamuusay tartanka kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya horyaalka socda, waxaana koobkan loo dhigay labada kooxood ee markaasi lagu kala magacaabo Somali Fruit iyo sidoo kale Somali Women's Organization oo ay markaasi kulan ciyaareedkooda is aragga labaad uu ahaa. Munaasabadda lagu weyneynayo Allah u naxariistay Cabdiqaadir Ibraahim Gacal Abkow ayaa gacan weyn waxaa markaasi ka geystay ciyaartoydii hore ee markaasi haweenka Soomaaliyeed ay markaasi qayb weyn ka yihiin, waxaana kasoo qayb galay mas'uuliyiin iyo sidoo kale madaxda xiriirada dalka iyo sidoo kale xildhibaano hore iyo xildhibaano hadda jira. Waxaa markaasi ka mid ahaa gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya Dr. Khadiija Aadan Daahir oo qayb weyn markaasi ka ahayd munaasabadan oo ay markaasi soo qabanqaabiyeen bahda isboortiga sidoo kale rag iyo dumar iskugu jira kuwaasoo lagu weyneynayay ciyaaraha kala duwan. Sidoo kale waxaa kasoo qayb gashay xildhibaano Daabo Suusow oo markaasi ka mid ah xildhibaanada federaalka dalkeena Soomaaliya, iyadana ka mid tahay bahda isboortiga ee dalkeena Soomaaliya. Sidoo kale Maame Saare Cumar oo iyadana ka mid ah bahda isboortiga iyo sidoo kale horena u ahayd xildhibaanad ayaa kasoo qayb gashay. Mas'uuliyiin aad u fara badan ayaa markaasi kasoo qayb galeen ciyaartoydii hore ee ragga iyo sidoo kale ciyaartoyda kale ee markaasi haweenka oo qayb weyn ay markaasi ka ahayeen Maame Nasra iyo sidoo kale Maame Shukri oo iyagana qayb ay markaasi ka wada ahayeen iyo bah hore ee isboortiga. Kulankan ayaa markaasi lagu maamuusay Allah u naxariistay Cabdiqaadir Ibraahim Gacal Abkow. Waxaa koobka ku guuleystay kooxda kubadda kolayga ee markaasi lagu magacaabo Somali Women's Organization oo ay markaasi kaga guuleysteen kooxda lagu magacaabo Somali Fruit. Sidaas ayaana koobka lagu guddoonsiiyay, waxaana guddoonsiiyay marxuumka wiilkiisii iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ugu sareysay kasoo qayb gashay oo qayb ka ahayd Maame Daabo Suusow oo ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Allah u naxariistay marxuumka uu dhalay Ibraahim Gacal Abkow oo markaasi lagu magacaabo Maxamed ayaa qayb ka ahaa oo koobka guddoonsiiyay naadiga kooxda kubadda kolayga ee Somali Women's Organization. Ciyaar aad u xiiso badan ayaana lasoo dhigay, sidoo kalena waxaa looga sheekeeyay taariikhda iyo halganka dheer ee isboortiga uu soo galay Allah u naxariistay Ibraahim Cabdiqaadir Gacal Abkow, aabaha abaabulka isboortiga dalkeena Soomaaliya. Allah u naxariistay dhammaan bahda kasoo qayb gashay ayaa duco iyo sidoo kale bogaadin weyn u soo jeediyeen Allah u naxariistay Cabdiqaadir Ibraahim Gacal Abkow oo horaantan sanadkii 2024 dabayaaqada dhamaadkeeda ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee dalkeena Soomaaliya.